السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال ميل والبو دافع الدنيا ذاك جوجتان كنا سودوا هذا برنامج كان وعي. برنامج كوعي وبرنامج أسبوع له آلانا أن نقع السنة dadka ama culimada orahdooda meesha dheer ay gaadho. waxaynu ku faraxsanahay maanta barnaamijka inuu noogu marti yahay sheekhana Sheekh Al-Fadila Al-Allama Sheekh Maxamuud Shibli oo aad TV-gan Somali Channel ka daawataan usbuuc walba barnaamijkiisa kulanka Shibli. maantana waxaynu sidoo kale ugu faraxsanahay in barnaamijka wacyi uu marti inuu yahay casumaadii aan u fidinayna uu naga aqbalay nuguna soo dhaweeyay maktabadiisa aynu marti ugu nahay Masjid Hidaayah oo ka yahay imaam khatiib Masjid Hidaayah. sheekhana ku soo dhaw barnaamijka. shukran mahadsantahay inaad naga aqbashay casumaadii aadna dadka Soomaalida ah u helantahay mar walba inaad u faa'iideyso haday noqoto fatwo iyo haday noqoto barnaamijka kalaba. daawadayaal barnaamijkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada oo aan dhinacyo badan ka taaban doono waxyaalo badan aynu ku soo qaadan doono su'aalo muhiim ah oo dadku ay u baahan yihiin xasaasina ana aynu weydiin doono sheekha jawaabahoodana aynu ku daawan doono barnaamijka qaybtiisa dambe ayaa si xiiso badan Allah na gaarsiiyo waanu ku faraxsanahay inaad mar kale daawanaysaan barnaamijka wacyi. sheekhana san sheegayba waxbarashada ayaynu maanta barnaamij ku eegaynaa. waxaan marka koowaad ku bilaabi lahayn bal waxbarashada guud ahaan inaad faa'iidooyinkeeda faahfaahin dheeri ah naga siiso. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. waxbarashada guud ahaan iyadoo la kala qaadin oo waxa qofka tayadiisa iyo waxtarkiisa in badan asaaska u ah. waxaa la yiraahdaa aqooni walaga maarmaan teeda xuni marar badan aqoon la'aantay dhaantaa qofka insaanka sida quraanka nusuustiisu sheegtay wuxuu dhashay isagoo waxba aqoonta uu baranayo in dhag buu ka bartaa in ishu ku bartaa oo marka horeysa asaaska aqoontu qofku waxay uga timaadaa ama wuxuu arkay ama wuxuu maqlay. wuxuu arkay waa akhriskii baa kamid ah waa aragti baa asaas u ah. waxa uu maqlayna sheekay noqon kartaa cashar buu noqon karaa. saa darteed kow luqadda uu ku hadlayo marka uu dhalanayo ma yaqaan waxa uu doonayo ma sheegan karo waxa uu diidan yahay ma cabiri karo. luqaddaas marka dan hore tilmaan iyo gacan buu ku bartaa sida qofka dhagoolka ilmaha yarkii. marka dambana yar buu luqadda u bartaa ilaa uu gaaray heer luqadii uu yaqiinay wuxuu rabay uu sheegan karo jacayl iyo nacayb labadaba. saas darteed baa waxbarashadu qaababkeeda kala duwan qofka hadli karaay ama afka yaqaana ama wax sheegan karaay dee lama sinna qofkan wax sheegan karin. taasi waa qayb waxbarashada ka mid ah oo qofkuba dunida dee kuma noolaan karo. asaaska waxbarashada aabaha iyo hooyada iyo bulshada uu ka soo baranayo erayga uu ku hadli lahaa iyo suu wuxuu turjumi lahaa iyo waxyaabahan magacyadoodii uu ku sheegi lahaa ama uu ku kala garan lahaa waxa xun iyo waxa fiican waa aqoon. culimadanu taasafteeda ka hadleen waxay ka yiraahdaan luqadda barashadeedu wax ilaahay qofka ku ilhaamiyeyba mise waa wax is-afgarad iyo heshiis ku bilaabatay. laakiin waxay isku raacsan yihiin ilmaha yar luqadda wuxuu ku bartaa eraygo loo sheego tilmaanna laga bixiyo. kitaab marka la yiraahdo saa loo soo qaato kitaab ee lagu celceliyo waxaan kitaab in la yiraahdo baranaya. marka la yiraahdo cimaamad ee lagu celceliyo cimaamad marka la isugu daro tilmaanta iyo erayga bay magaca uu maqlayo iyo waxa loo tilmaamayo isu qabanayaan. ka dhigta magaca inaad taqaano laakiin tilmaanteeda aqoon waxa looga jeedo. ولذلك يساعد المدير يراdan وبالإشارة وبالتعين يكون حكم ذي الخفاء والبين. معنى إن لغو تلمامو مقعنا لغو شيغو مقعية تابشا ليسو كادرو فواحدنا قوني يحيي كا قرصونا كو قران كرتا marka qofku siisaba nolosha asaaskeeda waxbarasho way guud ahaan shariicada markay soo ururiyay quraanku
qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun taasaa lagu ururiyey dad wax garanaya oo wax bartay iyo qof aan wax baran ma silna waxaa la yidhahdaa cilmiga aqoonta waxaa ammaan ugu filan in qof kasta waxbuu yaqaanaa jecel yahay in la dhaho xataa si wax aqoon darrana waxaa ceeb ya dhaliil ugu filan kii aan wax aqoonin wax ma yaqaano ma rabo ana wax dadku isku raacsan yahay aqoon la-aantu inay liidato aqoontuna wax fiicanta culimmadana waxay gaarsiiyaan aqoonaha diintu ayna ogoleen in la barto marka qaarkood lagu gaaloobi kara xataa sixirkaa ka mid a laakiin qoladii fircoon saxaaradiisa ahayd sixirkoodii baa ilaahay aqoontoodii sabab hanuun uga dhigay oo ay kala garteen mucjizada nabi muuse iyo sixirka iyagu ka shaqayn jireen inayna isku mid ahayn laakiin dadkaan sixir aqoon mucjizadii xataa waa sixir baa laga dhaadhicin karaa sidaa darteed aqoontu markii aqoon la yidhaahdo adduun iyo aakhiraba culimmadeenna waxay ku soo ururiyaan oo yidhahdeen adduun ninkii rabana waxa barta aakhara ninkii rabana waxa barta markaas waxaan is leeyahay aqoontu wax fitrada bini aadamkuba og tahay shucuubtuna ay kala dhaxleen oon laba isku haysanin aqoontu inay tahay waxa qofka noloshiisa ugu muhiimsan iyadoo haba kala muhiimsan gartay marka sheekhana da ahaan markii cunuga uu yar yahay meeqa sana ayaa habboon in loogu bilaabo waxbarashadii ama dugsiga badanaa dadku iskuma waafaqsana da ahaan qaybo badanna waxay sheegaan in marmar ay soo baxdo cunuga asoo yar haddii wax la geeyo oon waxba gaarin inayn u fiicnayn kuwaa sheego kuwa waxay dhan way u fiican tahay marka da ahaan meeqa sana habboon in cunuga lagu geeyo dugsiga ama waxbarashada alxamdulilah horta saddex arrimoodba saameyn bay ku yeelanayaan saas darteedna da in la xadido marar badan way adkaanaysaa ilmuhu markii ilaahay caqliga iyo garashada wax lagu kala garta waxa loo sheegay hibada la eego isku xilli wax ma gartaan ilmi isagoo yar garashadiisi iyo fahamkiisu soo degdegana waad arkaysaa ilmi isaga kaas ka weyn oonaada waxu kala fahmaynin oon kala garanaynin waad arkaysaa walidaalika culimmadeennu masalada way ka hadlaan oo muslimiintu markay kala saarayaan xaddu tamyiiz goormu ilmaha wax kala gartay bay waxay ka hadleen weliba waxbarashada goormaa la geeyaa markuu wax kala sooco goormuu wax kala soocaa imise jir waxay isku raacsan yihiin intooda saxdii xad go-aan ma laha laakiin 4-5 bay ilmaha qaybo badani wax ku garan karaan waxaan garanayaa ilmo 5 jira oo Soomaaliyeed oon kula kulmay waddanka Switzerland magaalada Lausanne 5 jir 15 mise 20 juz oo quraan xifdisan baan garanayaa dugsi lama geyn laakiin cajalad video uu soo daawanayo quraanka xifdiyay walaalkii oo 7 jir ahaana quraanka oo dhan buu xifdisana qoys Soomaali ahaayeen magaalada Lausanne Switzerland deganaan markaan la kulmay 2004 bay gurigooda ugu tagaan ku ciyaalkan ka sii qaada meesha weli ma gaarin ciyaalku xilligii dawladdu ay ku qasbaysay xanaano in la geeyo wadamadaas galbeedka haddaba ilmaha fahamkiisa iyo kala garashadu way kala horeysaa kuwana mar hore iyo durbo waxbay kala gartaan kuwana wax kala garashadoodu way yar daahdaa sidaas darteed da lama xadayn karee laga yaabo de maadaama ilmihii xeerar iyo qawaaniin dawladeed iyo marka la dejinayo ilmihiina ilmo aan qoys loo baari karin in xeer guud lagu dhufto waa laga yaabaa laakiin markii la yiraahdo qofka waalidka ee xorta waa ilmihiisa goormuu geynayaa calaamadaa muhiim ah ee cimriga iyo da-du ka muhiimsan ilmihii durbaba haddii la arkay isagoo wax kala garanaya wax baranaya waxay ku garan kartaa ilmaha haddaad cajalada u shado waxaa laga yaabaa isagoo 2 sano jiroo durbo qabanaya inaad aragto ilmahaasi garashadiisu iyo wax kala garashadiisu way soo degdegtay culimadeennu waxay yidhahdaan inuu wax kala gartay maxaa lagu garan karaa bay xataa hoos uga hadlaan qaar waxay yidhaahdaan markuu saca baadiya la joogay iyo dameerka kala garto qaar waxay yidhahdaan taa keliya maaha markii ilmuhu qur-aanka hala geeyo qul yaa alkaafirun uu kala garta aayadaheeda isu eeg laa acbudu maa tacbuduun walaa antum tacbuduun markii uu kala soocee si fiican u kala akhriyo ilmaha wuxuu kala gartay bay yidhahdaan qaarkood qolaba dee qolyihii tacliinta iyo dugsiyada ku dhex jirayna tan ay ku qiimeeyeen qolyihii xoolaha iyo xayawaanka la joogayna tan ay ku qiimeynayaan meesha aad joogtay wixii kuu suuragala ilmahaaga inaad la socoto xilliga uu wax kala gartay
xili dawlad qaanuun ku qasbaya waa gaar taa waa saameyn bay leedahay ilmaha kala garashadooda qawaaniinta dawladaheen tilmaanayna dee xilli ay qasbi baa jirto markii qawaaniin sharciga la dejinayo xataa shariicadeena qof looma eego laakiin sida qaalibkaa la eegaa waxaa kaloo saameyn kula dee hadda waxbarashooyinka waa la geeyaa la yidhaahdo duruufta waalidka waalid shaqeeya qaraabiya wax ilmuhu haynayaan aan jirin meel baa la iska geeyaayo mararka qaarkood inuu ku ciyaaroo lagaa hayaa loo geeya adnaad ka soo xamaalato dee duruufo badan baa xadidaya laakiin qofkii xor u ah inuu ilmihiisa hadba suu wax kala gartay ku qiimeeyaa sax sheekhana waxbarashada diiniga ah culummada baratay iyo dadka bartay waxbarashada maadiga ah iyo kuwa labadiiba isku darsaday farqiga u dhexeeya noo kala qeexay alxamdulilah horta waxaan rabaa inaan waxyar ka idhaahdo qaybtan sax ma ah qaybta waxbarasho diini iyo mid maadi ah loo qaybiyaay sax maaha sida loo yidhi marka la eego dhammaan waxbarashadu waa diin laakiin hadba inta ay diin ka tahay baa kala badan waxna waa axkaam sharci iyo cibaadaad oo la barto waxna culumtan kaloo diintu waajib iyo fardu kifaaya ay ka dhigtay wey culumtan maadiga lagu magacaabayo waaga hore culumu abiica la dhihi jiray ama culumu tajribiya culumtan tijaabada ama abiicigaa la dhihi jiray laakiin culumtan maadi marka la yidhaahdo taqsiimka diin iyo maadi ah tan inayna diin ahayn bay sawir soo saaraysa saxna maaha culumta maalan tabiga iyo caafimaadku dad yaqaana in la hela waa waajib ummaddu diin baana waajibaysa ilaahay baa loogu dhowaanayaa culumtan jidadka iyo injineerinka qaybihiisa kala duwan dad yaqaana in la helayo waa waajib tan gaadiidka dad yaqaana in la helayo waa waajib culumtan diin ahaan cibaadadaadii qaybaadan u baahnaynayo ka adiga shaksi ahaan laakiin ka ummad ahaan marka la yidhaahdo horta culumtan oo dhan marka koobaad waa culum ummaddu u baahan tahay marka labaad culum badan oo hadda waa maadi la yidhaahdo diintu kama maaranto maalin kasta dad baa wax isyeelaya oo loo kala xaqayaa waa dhakhtarka in lala kaashado wadaadkii kitaabta akhriyey qayb badan wuxuu cuskanayaa ninkan dhakhtarka aqoontiisa xukunka sharcigu dhakhtarku qayb ka noqonaya guryaa dumayo xuquuq baa la isku qabsanayaa aqoontii ninkii injineerka iyo xukunkii sharciga ay qayb ka noqonaysaa jidadkaa la isku qabsanayaa aqoontii jidadka iyo xeerarkii hay-adda dowladda hoose iyo trafikinku qayb bay ka noqonaysaa xukunkii sharciga ayaa xaqle maxaa xalaala maxaa xaraama axkaamtii shariicada saas darteed xuduuddii milkiyadda xuduuddii xuquuqda xalaashii iyo xaaraamtii wixii wax badan waxaa qayb ka noqonaya culumtan haddan qaybta maadiga laga dhigay marka waxaan jeclaan lahaa anugu soo jeedin lahaa qaybinta erey bixintu waa muhiim erey bixintu saameyn bay maskaxda iyo fikirka iyo fahamka dadkaba ku leedahay culumtan ereygaas qaybinta noocana oo mar kale intay sii gudubto la yidhaahdo wadaad iyo maadi gabadh wadaad iyo gabadh maadiyadaad maqlaysa ereyada saas oo kaleeta taqsiimaadka noocana ma saxna waxaana laga yaabaa si fudud dadkii wadaadadaya saxwadu si fudud intay ku dhex gashay ereygay sidaasoo fudud inuu ku suuq galay culumtani sax culum sharciya dhammaan waa wada culum islaamiya dhammaan waa culum islaamiya wixii sharcigu xarimay maahane laakiin qayb sharci ah oo axkaamtii sharciga iyo taqriirinteeda ka hadlaysa iyo qayb aan sharci ahaynoo culum tajribiya abiiciya oo kaleeta wey taa waan rabaa inaan ka ihahda marka hore tan labaad labada culumtani marka labaad waxaan rabaa inaan idhaahdo way isdhammaystiraysaa ninku axkaamta sharciga markuu baranayo waxaa wax badan caawinaya culumtan kale aqoonta uu leehay wax badan caawinaya wataan sheegaya hadda axkaamtii sharcigu meelo badan bay la geli hadda xisaabtu waxaa laga yaabaa inay culum maadiya ereygayaa tiri hadda ugu xisaaban tahay dadka oo ninkan takhasuskiisa xisaab wey laakiin markaad kutubtii fiqiga shariicada timaado baabul faraa'id iyo waxa la dhexlaa la dhihi wadaadku wax ma dhexashiin karo ama cashir ahaan uma akhriyi karo dad xisaab garanayn maantao dhan xisaab baa la isku celinaya jajab bay gelaysaa waa la isku rogayaa baa la isugu qaybinayaa waa la kala jarayaa abwaab dhan oo cibaadaadka waxaa jira
axkaamta waagaan minhaajka iyo baadiyaha ku akhrisan jiray lama fahmi jirin sababta waa xisaab gabadha caadada ku dhacaysaa laga hadlayaa bil dhexdeed bay ku dhacday toddobaadka hore ku dhacday toddobaad saddexaad bay ku dhacday inta bishii intibaa kasoo haraysaa imanaysa waxaa imanaysa salaad baa imanaysa salaada jamaacada la tegayaa labadaba way ku saamaynayaan culumtan handasada iyo dhismuhu way ku saamayn oo baabka minhaajka waxaa jira haddii la isku xidho qof guri qolka caadigaa ku jira iyo qof qol barsada jooga ninka aqal soomaaliga yaqiinay qol fadhi iyo barse iyo jiif say u kala dhisan yihiin ma yaqaano laakiin axkaam sharciga ka dhalanaysa ma la isaga xidhan karaa qolal daaqada isaga bannaan oo kan ahayn ma la xidhan karaa waa la isku laabi jiray waxaa iman jirtay ragcadaad ka tagtay ragcaddii qaybaad ka tagtay ragcadda koobaad baa hal sujuuda dhaaftay midka kalena hal rukuuca dhaaftay midka isku celceli imsa ragcada saafiya kugu soo haraysa marka la yidhaahdo waa xisaab inaan galno saa darteed waxaan rabaa inaan idhahdo culuumtani intuu qofku yaqaano oo wax fiican ma lihi inuu ku takhasuso qofka takhasuska shariicada qaadanaya waxaa ugu wanaagsan in culuumtan kalena wax uga bilaabaya si fahamka mas'aladu markay ka gasho uu fahmi karo haddana kaba sii daran waayihii hore masaa'il fiqhi oo tibiga ku imanaya masaa'il fiqhi oo traafikin iyo handasadii iyo jidadkii iyo guryaha dhismahoodii iyo xuquuqdooda ku imanaya waa abwaab dhan fuqahadu ay kaga hadlayaan masaa'il badan oo xisaabtaasaa ku imanaya dee wixii haddaadan waxba ka fahmi karin kitaab walba isku laabbuu noqon kitaab walba inaad isku laabtay noqon axkaam sharci oo bii'ada ka hadlaysaa iman kutub baa laga qoray axkaam sharci oo xasharaadka iyo xayawaanaadka cilmul xayawaanaadkii maadigaa lagu daray bii'adii iyo tabiicadii iyo biyihii iyo hawadii maadigaa lagu daray fuqahadeennii hore inta way ka hadlaan sidaas darteed horta waxaa ugu wanaagsan laga yaaba inay adkaato qofku laba culumta dhammaanteed takhasus weyn inuu ku yeesho laba culum oo maadiga takhasus weyn kuma yeelan karti injineer takhasuskiisii leh iyo tabiib dhakhtar takhasuskiisii leh ma wada noqon karti sida qaalibka ah laakiin culumta shariicada ninka ku takhasusayana inuu tan wax uga bilaaban yahay tan kale cidda ku takhasusaysana in culum sharciya asaasiyaadka cibaadaadka iyo la macaamilka iyo axkaamta wax uga bilaaban yahay taa way dariiqada ugu wanaagsan labadubana dee culumta sharcigu xad fardu cayn oo waxaa jirtuusan qofku ka maarmi karin qof kastoo muslim inuu barta ay waajibta wixii intaa ka badan hadba baahida ummadda xaduu ka daboolaya fardu kifaaya ayay muhimadeedu tahay wabillahi towfiiq sheekhana waxaa jira dhalinyaro badan oo waxbarashada ku mashquulsan waxbarashadana jecel si kastaba aanan aada u fahansanayn qaababkii ugu fiicnaa oo jadwal ahaan iyo waqti ahaanba waxbarashadooda ay u qaabayn lahaayeen ayagana wax isbara sawir noocay ahaad siin lahayd alxamdulilah horta dadkaasi allaha waafajiya intay waxbarashada ku dadaalayeen ay jecel yihiin waa calaamad khayr marka labaad waxaan dhihi lahaa baabka waxbarashadu marar badan duruuf baa ku kaliftoo loogu garaabaa oo ciddii waxbari lahayd inay waayaan ayaa dhacda isagoo wakti haya waddan iyo meelna jooga waxbarashadiina niyadii iyo dadaal u haya haddana cidduu wax ka baran lahaa inuu waayana way dhici kartaa isaguba inuu iska dhaadhiciya inuu wax isbarana way dhici kartaa waxbarashadu qofku markuu wax baranaya waxaa lagu matalaa qofka dhakhtarka u baahan haddaad ugu tiraada dawada anaa isu qoraya de waxaa laga yaabaa meel xun aad iska tuurto ama sun aad cabtaa dhici karta qofka hadduu yidhahda anaa wax isbaraya wixiina ma aqaano waktina wuu ka lumayaa wadiiqihii iyo dariiqii saxdahaa inuu khilaafana waa laga yaabaa qofku asaas ahaan 4 ama 5 arrimood buu u baahan yahay ardaygii markuu wax baranayo marka koowaad horta wuxuu u baahan yahay niyad iyo ikhlaas iyo go-aan adag buu u baahan yahay waxaana waa waxbarashadu waqti dheer iyo dadaal badan iyo rafaad badan bay u baahantay taa marka uu helo waxaa labaadaas u baahan yahay macallin haga tilmaama isaga inta uu qiimeeyo halka mustawaha uu maraya u sheega ilmuhu iskuul hadduu yimaado imtixaan baa laga qaadi kalaas ku habboon baa la geyn madrasa hadduu yimaado imtixaan baa laga qaadi kalaas ku habboon baa la geyn haddii uu isagoon alif soo akhrisan 40 aqooni bukhaari baan akhrisanayaa yidhahdee culumta shariicada ama isagoon safiina soo marin minhaaj baan baranayaa yidhahdee waxbaan baranaya waqtigaa ka lumaya wuu ku wareerayaa haddii arday aan dugsi dhexe hoose dhexe soo dhigan jaamacad kulliyad baan fadhiisanayaa uu yidhaahdo
dee uu ku wareerayaa mustawa waxa la maraya mustawaha aqoontu sida qofku jirkiisu u koro bay aqoontuna u kortaa wax maanta aad garan karto oo waxaa jira shalay aadan fahmi karin waxaan soo jaamacadda annagoo dhigana in hadda un culimmada ka mid oonan magacaabaynin laba nin bay haayeen nin baa kitaab wuxuu soo qaaday la yidhaahdo almuwaafaqaat lishaatibi ninku kitaabkan u akhriyey arday jaamacad dhigtana uu ahaa laakiin fanniga wax kama aqoon markuu dhammeeyey buu waxba ka fahmi waayey nin kaloo culimo ardayda ka mid ahaa oo fannigan yaqiinay buu u yimid wuxuu yidhi nin kitaabkiina waan dhammeeyey waxbana kama garanay ka waran wuxuu yidhi dee wax meel aadan gaarin baad ka bilowday kuwa yaryarka haddaad soo qaadi lahayd ood soo akhri lahayd kan marka dambe waad fahmi lahayd saas darteed ardaygu wuxuu u baahan yahay nin macallin ah ama sheekh ah ama ustaadu ah oo tilmaamo inta isaga qiimeeya aqoon meeshuu marayo halkaa ka bilow ama taasaa hadda kula siman yidhaahda sida takhtarkii dabu ugu qora buu u baahan yahay waxaa saddexaad ardaygu u baahan yahay waa saaxiib qofku naftu keligeed way daashaa naftu keligeed way daashaa wax la barta marna uu la tartamo ilaahay uusan kaa badin oo xiise iyo qiiro geliya marna marmar baa wax ku dhaafayaane wixii dib u xasuusiya intaa kadib wuxuu doonaya ha baranaya ilaahay inuu baryana oo ku xidhnaado cilmiga ilaahay baa bixiya nabi maxamed baa ilaahay lahaa qul rabbi zidnii cilman la yidhi ilaahay baana dadka aqoonta u fududeeya wax walbana bixiya isagan ilahay inuu baryo u baahan yahay marka raggaa waxaan dhihi lahaa manhajna waad u baahantihin in culimmada dib intay ugu noqdaan iyo dadka hortooda wax soo bartee jidkan soo tijaabiyey meeshan lagu soo jabay keligeeda iyo meel cidlaha ku jabine inay dhahaan manhajkana noo saxa mustawahana naga qiimeeya mar walbana ay talada kula soo laabtaan bay u baahan yihiin nacam sheekhana dhalintaas aad tilmaamtay waxbarashada kuwana keligood baa isbaro kuwana waxay leeyihiin sheekh ku xiran oo ay ka qaataan culammada marka labadooda farqiga u dhaxeeya bal wax yar haddaad faahfaahin karto badanaana waad ka sheekaysayba alxamdulilah waxaan filayaa laba ama saddex arrimoodba way ku kala duwanaadaan ardayga isaga wax isbara saddex mushkiladood oo ardayga kale sheekha lihi uu ka badbaadaa ku dhacda marka koobaad tinaan soo tilmaamo manhaj wareer baa ku dhaca halkan ninkani nin horii dariiqa soo tijaabiyey uu hagayo waa jid la marayo oo nina nin yaqaana u wado nisna isagu tacabirayo oy marar badan meelan exitka ama meeshii laga baxaya aan ahayn inuu qalaf ka yidhahda ay dhici karto saas darteed manhaj wareer baa ku dhaca wakti badan bay ku qaadataa waxaa masaa'il ku qallocda oo sheekh ka saxa aan jirin baa ku qallocda manhaj wareer iyo maada wareerka waa ku dhaca midda labaad waxaa ku dhaca cilmigu waa laba waxna waa maadada iyo masalada barashadeeda waxna waa maamuuskeeda iyo aadaabteeda aadaabtu aragti ahaan bay maada ahaan kutubta ugu qorantahay dhaqan ahaan laakiin macallinkaa laga bartaa ardayga macallinka leh wax soo baray maadadan markii aad baranayso aadaabteedii iyo asluubkeedii iyo anshaxeedii iyo dhaqankeedii iyo maamuuskeeda la socda waxaa lagu barayaa markaad soo fadhiisato fadhigaa lagaa saxayaa golaha sida loo fadhiistaa lagu barayaa kitaabkaad meel si u dhigaysaa ka qaad baa lagu leeyahay laakiin ardaygaan macallinka lahayn aadaabtii baa ka lumay cilmigana waxaa layahay cilmun bilaa adabin ka طacaamin bilaa milxi cilmi aan aadaabtiisi iyo anshaxiisii lahayn waa raashin aan cusbo lahayn cusbadu waa wax yar baa lagu daraa raashinka laakiin way qurxisaayo way macaanaysaa aadaabtu waa wax yar oodan yar i yar macallinka iyo dhaqankiisa iyo ardayda kula joogtaad ka qaadan ardaydii baad ka baran macallinkii baa idin sixi sheekh kalaad u tegi mid kalaa lagaa sixi isagoon kulaba hadlin arday kalaa qudhigi ka daasada kadib waxaad baran maadadan cilmiga ah aadaabteedii iyo anshaxeedii iyo ixtiraamkeedii saa darteed waxaa malxuud oo la taaban karaa raggii culummo wax soo bareeni waa ka aadaab iyo anshax iyo ixtiraam badan yihiin dadkii iyagu kitaab keliya la soo macay waayo ninkan maaduu soo qaataye la dhaqankeedii ma yaqaan marka anshax xumo badan
iyo xataa erey cilmigii erayo laga xishoodaa jira erayo aadaabta aan ku fiicnaynood khibradda ninka macalinka kuwaad ka qaadan baa jira qisas iyo tusaalooyin badan buu kuu keeni qaad eebdarre iyo qaabdarro dhaqan ahaa waana ta culimmadu muruu'ada ay ku magacaabaan anshax wanaagga aadaabi taalibilcilmiya marka laga hadlayo antaad theory ama nadari u qaadanaysaad akhsaan u akhriyayso dhaqan ahaan baad u baahantay mushkiladaana way dhaqsataay aad waxaa u badan kitaabka ma ixtiraamo dadka la dhegaystana ma ixtiraamo ciddii kale culimo iyo wax taqiinina ma ixtiraamo oday iyo inta kalena ma ixtiraamo way ku yartahay ardayga waxayse soo bareen inaan maktabad geli yiri ixtiraamka cilmiga iyo aadaabtiisa ku yartahay mushkilad saddexaadna way ku dhacdaa wuxuusan ahayn buu ismoodaa markaad kitaabka keligaa baranayso masala kaa khaldan ma garanaysid mas'alada aad kitaabkan intaad soo akhriday ka heshay wuxuu u qaadanayaa cilmi aan la aqoonos bartay marka dambe wuxuu gaarayaa cid isaga uu hambaynaya inayna jirin oo cisaa ka aqoon roonba ayna jirin buu u qaadanayaa ardayga laakiin wax la baro masaa'il buu soo ururinayaa markuu miiska yimaado mid ka khaldanaydna waa loo saxayaa waxaa leeyahay masalada saad u fahantay maaha kitaabeel baad ka akhridaa kitaabeel akhri qaladkii uu fahmay waa loo saxayaa kadib wuxuu ogaanayaa kutubtan ma cusbay hortii baa la soo akhriyay cilmigana rag baa ka horreeya oo soo maray hadda meesha ay u joogtana dad ka aqoon badan baa jira wuxuu ogaanayaa haddaba mustawihiisu meeshuu marayo kan laakiin waxaad arkaysaa isagoon waxba aqoonin oo baxar isu haysta laba su-aalood markaad weydiisana meel bannaan buu fadhiisanayaa saas darteed ardayga sheekha leh ama ninka xerta ee culimo wax ka barta hadba culimmadu ka baranayo aqoontay soo mareen iyo dhibkay u soo mareen iyo masaa'ilkan isaga ka khaldan dib markaad og tahay dad ka aqoon badan inay jiraan iyo markaad isu haysato adigu kama dambaysta inaad tahay waa labada kale marka isla weynaan iyo noocan gururka la yiraahdo ismahadin aan waxba ka jirin oo wuxuusan ahayn inuu ismoodo wuxuusan aqoon inuu yaqaano ismoodo wax ka khaldan ay u saxan yihiin ismoodo cid u saxaysana ayna jirin halkaas tajwiidkan isbari buu ku leeyahay xuruf baa la tafkhiimiyaa buu u qaatay xaraf walba waa weyneynaya marka tajwiidku isla saxan yahay laakiin dadkii yaqiinay hadduu yimaado raxmad taqaanida baa hadda alifka loo saxay tusaalahan waxaan xasuustaa 2007 inay ahayd baan mise 8 dhalinyaro badan baa halka wax akhriyi jiro haddaba jooga maadada tajwiidkan bay noqotay in loo bilaabo nin khayr allaha siiya rag aad ugu fiican oo Maxamed Kharra la yiraahdo bal masaajidka sigiisa qaybta u koraysa baan u soo diyaariyey cashirka inuu u bilaabo ramadaan baa lagu jiray galabtii uu bilaabi lahaa baa duruuf qabsatoos naga soo daahay anaa markay kelimad muqadimaa jeediyey nin waxaa fadhiya xaafidul quraan isuna haysta dadka mujawidka ugu fiican isagu yahay cid uu og yahay baan jirin laakiin quraankiisa in badan waa weyneynayta xalay oo kaleetana taraawiix buu tukanay mise tahajjud midkood marka ahmiyadda tajwiidka markaan ka hadlaa waxaan ku leeyahay xalay nin ina tukanayay anu ma garanay ilaa uu fadhiyaa quraanku hadduu luga leeyahay orod buu daaqadaha kaga bixi lahaa baan ku wuxuu akhriyay laxnigu akhriyay iyo axkaamku ciyaarku akhrinayay quraanku hadduu luga leeyahay isagoo didaya buu daaqadihi albaabada ka bixi lahaa baan quraanku ninkii maalin labo cashirkii ka cararay baa la igu yiri gadaal baan ka ogaan doonaa kadib uu ku taxmay kadib isagii baa la wareystay wuxuu yiri waxaan isu haystay iyo markaan cashirka fariistay iyo saxitaankii saan isu ogaaday inaanan tajwiidba garanaynin kaafiya kala dheeri bay ninkii isu haystay inuu muallimul muallimiin yahay inuusan aqoon baa u soo baxday marka masaa'ilka diinta kalena waa sidaas qofka wax isbara keligii gurur noocaas ku dhaca isagoo khaldan oo wax walba laaximinaya mid kamida tusaale kale aan ku siiyay baa wuxuu leeyahay munaasabad walaa walbaraan ka hadlayaan kaga hadlay maktabaduhu taalacada hadda magaaladu nala jooga waan aqaan laakiin magaciisa sheegi maayo wuxuu yidhi baab weyn oon la fahmin baa jira weyn oo shariicada muhiimka oo ninkii fahmi waay uu gaaloobay maandhow muxuu yahay albalaaya walbaraaya weeye alwalaa walbaraa magacii buu si xilaa yahay laakiin isagu wuxuu isleeyahay inuu fahamsan yahay baab weyn oo dadku ayna garanayn marka maxaa sababay
hadduu majlis culimo fadhiisan lahaayo ereygaa markuu yidhahdo dhira waran maxaa tiri bal ku celi wuxuu is ogaan lahaa mas-uuliyiisu meeshu joogo marka saddexdaa mushkiladoodba ardayga keligee baa wax isbari yidhaahda mushkiladaasaa qabsata sax qof waxaa jira mustawa hadduu mucayan aad gaarto oo xeerkaa uu dhaafo marka hore culummada kusoo tarbiyoobo de cilmiga qaybta dambe mustawaha aad gaadho adoo aad taalacan karta way jirtaa laakiin inta ka horreysaan ka hadlaya bileed gartay tusaale kale waxaa jirta nin sheekh ah macalin ahaa macalin dugsi marka arday buu u yeerinaya cashar waxaa laga sheekeeyaa marka inuu ugu yeeriyey asaa isbaray dabcan qur-aanka wamaa kaana linabiyin an yafulla waman yaflul ya'ti bimafalla yowma alqiyaamati haweenka oo qafa ka dhigay sheekh waxaad ku celcelisay haddayto manhaj inuu muhiim yahay ma jiraan manhaj dhammaystiran oo la raaci karo se maxaa loo waayey ama loo la-yahay manhaj waxbarasho cilmiga ah sida loo helo kan madaarista iyo kan iskuullada oo kaleba alxamdulilah horta waa dhaliil jirta wey dhaliishaan waxaan dhihi karaa waagii hore culimmadeenni hore soomaaliyeed manhaj la isla yaqaanaa lahlahaan jiray naxwada ajruumiga laga bilaabo ilaa alfiyat ibni malik iyo shuruuxdeeda sharx ibni caqiil iyo xashiyat lkhudari la gaaro sarfigu dalaamitul afcaalka aad loo akhrisan jiray kadibna xawaashida baxraqiyaa la akhrisan jiray fiqigu safina laga bilaabi jiray ilaa minhaaj baa la wadi jiray iyo irshaadiyo ninka irshaadkana ku yar darsada tafsiirka dee tafsiir jalaaleyn iyo xaashiyatu saawiya jumal iyaa la akhrisan jiray aqoonta la hayaay aad bay u yarayd laakiin way qaabaysnayd qaabka loo akhristo caqiidada xataa ashcariyada la akhrisan jiray xayaatulislaam inta laga bilaabo caqiidatulcawaamka la maraa saa loo socon jiray mar dhexda ah baa manhaj wareer dhacay manhaj wareerkii dhacay kii horena waa laga tegey gaar ahaan fiqigii iyo caqiidadii iyo waa laga tegey ku dambana oo la isku ogyaho o la isku raacsan yahayna ma samayn waxaa jira hadda dadaallo badan oo sanadkan dambe la waday oo xalaqaadka cilmiga manhaj in loo sameeyo oon rajaynayna inuu dhaqan galo oo funuunta iyo culumta shariicada iyo kuwan la xiriira ee aada ugu dhadhow oo dhan ah oon aada u rajaynaynaa jira marka waxaan is leeyahay kuwaasi aad bay suuragal u tahay inaan mar dhow dhaqan gelinno manhaj intii suuragala aan ka midaynay in la helo laakiin hadda waa dhaliil jirto isku dhexyac manhaj inuu jira wax jira wey sheekhana marka waxbarashada diineed ee loo xireeyo maxay kaga duwan tahay midda kale ee maalan iyada loo aado wadamada kale maalan wadanka sacuudiga mauritania iyo wadamada kale oo noocaas sida masar iyo meelahaas alxamdulillah horta rixlada iyo in loo safro waxbarashadu waa wax soo jireenaha qur-aankuna tilmaamayo nabi muuse calayhi salaam waa kii la faray inuu aado majmaca albaxrayni oo khadir oo halkaa wax kaga soo faa'iidaysto cilmiga haddaba meeshii aqoon kaa fiican taada jirtaay in loo aado dee culumta dhammaanteed tan sharciga iyo tan aan sharciga ahayn labadaba wax jira wey asalku laakiin waxay ahaan jirtay qofku marka uu barto meeshiisa iyo aaggiisa waxa laga yaqaano inuu meesha kala aado meesha kala aaditaankeedu waana qurbo khatar badan bay safartu iska leedahay dadkaad u tegi doonta iyo waxay kala yihiin ma taqaanid waa inay baahi keentaa asalku oo meesha aad joogtay waxaad ka baran kartaay asal ahaan lama aadi jirin wixii un system hadda ku yimid jaamacadiya maahan hadda wakhtigan aan joognaayey laba mushkiladood ama saddex mushkiladoodba way yeelatay kow waa midda koobaadee duruuftii nabadgelyadu waxay adkaysay dhaqdhaqaaqi iyo socodkii runtii dhibaato badan baa ka jirto mararka qaarkood aad tahriibka ku shabahayso meelaha qaarkood oo loo xeraynayo khatarta ay leedahay iyadoo cilmigii iyo dadkii barayay jiraan mid labaad waxaa kaloo jira masalada hadda ay soo marro manhaj wareerka ahaana waxaad arkaysaa ardayga mauritania u xeraynayaa isagoo maalikii u imanayaa ardaygu dhinacaas sacuudigii u xeraynaya isagoo xambali ku imanaya waxa uu soo darsay waa fiqi xambali markuu yimaado fiqi xambali inuu akhriyu rabaa mujtamacuu ka tegayna waa mujtamac fiqi shaaficiya waan isku wareerayaa marka
masaa'ilkii xataa mustalaxaadkii waajib iyo sunno iyo loo kala yaqiinay baa marar la isku wareerayaa axkaamtii sharciga ahayd isaga iyo dadkii kale way isku wareerayaan sida saxdaana mujtamaca bii'ada caamka ninka isagu ijtihaad gaara waa gaarkii oo mujtahid noqdo dadka kale wixii masaladii nas iyo daliil cad khilaafsan maahane inaan madaahibta lagu wareerinin wey weli way furantaan is leeyahay rixladii talabulcilmigu laakiin irshaadaad iyo tale iyo tawjiihin badan baa ka maqan si isbaritaanku fawdada ay u jirtay bay xeraynta lafteedu iyo meelaha loo kala xeraynaya lafteedu ay fawdo uga jirtaan saa darteed waxaan dhihi lahaa ardaygu inta soomaaligihii markii uu barto culumta dadka soomaaliya iyo culimmada soomaaliyeed ay yaqaanaan uu barto wixii markaa ka baxsan inuu xereeyaay dhibaato male waayo asaaskiisu waa dhisan yahay waxa uu u baahan yahay wuxuusan u baahnayn uu kala garan karaa laakiin ninba waxaa la yidhi magaalo soomaalida meelahay degaan ka mida baan tegey markaasaa waxaa laygu yidhi halkudhiga war dadkan xer meehee waa askar bedela erey la yidhahdaa nin bixiyey baa laygu yidhi waxaa la yidhi sababtuu ku baxay maxay ahayd xer wadamo meelo fogfog ka soo safartay oo meel isugu timid buu u yimid wuxuu yidhi aduu xageed ka timid meel heblaan ka yimid maxaad soo doonatay cilmi baan soo doontay maxaad barataa jusca camaan marayaa qur-aankii waa camo marayaa adiguna maxaad soo doonatay anuu tabaarag baan marayaa wuxuu war meeshaad ka timaadeen iyo reerihiin camo iyo tabaarag lagama waayine waxa kale u timaadeen meesha ii sheega marka waxaan uga jeedaa isagoo dadkoodii la joogo qofku mashaaqda aan gelin qur-aankii uu baran karay uma baahna inuu xereeyo laakiin markii uu aasaaskii intii u baahnaa barto inaha kale wuxuu guranayo wuxuu baranayo waqtigiisana fiilsaashana u yaqaana haddii kale bad kale uu ku dhexlumi wabillahi tawfiiq sheekhana saad la socotaba culimmadii way badatay maxaa lagu kala garan karaa culimmada waxa saxda ah dadka barayo iyo kuwa waxa aan wanaagsanayn dadka barayo alxamdulillah horta way jirtaa culimmada inay fara badatay way jirtaa culimo badan oo hadda abuu aan la aqoonin oo soo baxayna abuu wax loo dhaafay ma taqaani sheekh baa saa yidhi abuu baa saa yidhi abuu hebel dhowr iyo sagaashankii bay ahayd halku dhigaa waagaan dhihi la qori jiray abawaad nakiraad abuu aan meel loo dhaafiya la aqoonin xaggee joogaa lama yaqaan magaciisa maxaa lama yaqaan xaggee wax ku soo bartay lama yaqaan haddana sheekh kale aan ugu soo biiray oo google la yidhahdo oo google garayn buu ku leeyahay markaasuu ma kala yaqaano weebkan wax kala soo baxaya ma sunna mise waa shiica ma kala yaqaan ma kala garanayo saas darteed horta fawda cilmi ah jirto oo yaa culamaana waa la garanaya horta yaa wadaadana waa la garan laaya allah u naxariistee sheekhana sheekh Umar Faaruq baa la iiga sheegay maquula rag sheekh lagu yiri waraa baasha kaadi baa loo cabi jiray ka daayay inuu yiri de hadda nin walba shaatigii sheekhna la sii haddii qamiisna uu xidho cimaamadna iyo koofiyadna qaata garhkana waxoogay sii daaya masaajkana alxamdulillahi rabbil caalamiin laba maalmood dadka kor istaaga yidhahda sheekh hebel way su-aal baa la weydiin qadiyadda saddex arrimood in la tixgeliyaa mudan kow qofka wax laga baranayo siiradiisa waxbarasho in la yaqaano isaga aqoontiisu waxaan uu sheegayaa ma sax baa mise sax ma aha isaga horta wax ma soo bartay baa ka horeysa 1996 yaa waxaan tagay waddanka Sweden magaalada Stockholm baan tagay masaajid ku yiilay baan galay laba ragcadood baan ku tukaday nimaan aqiinay oo ardaynimadii secondary-ga taanaway wada dhigan jirnay oo qolo wax u akhriyayaan u tagay baan arkay markii la kala dareeray qoladan qayb waraystay oo inay muddo dheer luqad iyo naxwo loo akhriyo waxba ka baran laayeen bay sheegeen intaan uu sunnaysanay wuxuu akhriyayeen maqlayeen naxwo ma ahayn gabayo carbeed oo xamaasad iyo jacayl iyo akhriyay waxaan jirin buu akhriyay isagii baan saragno waxaan ku reede oo baladan kugu ogaan bad wili wadaa waan ku waxbaan ku ogaan jiray qoladan waa iskaga madadaashaa waxaan ku ogaa dadka macashirka jooji ama waan u sheeginaada waxba barin dadkan naxway u yimaadaan kutub naxway wataan maanta oran shar carbeed oo haysa caaytan iyo jacaylaha baad akhriyaysa qaacidada naxwada uma sheegtid dadkan waa masaakiin allahooda alle laakiin ninkan wax yaqaan ma yaqaanaan nimaadan aqoonin bay inuu wax yaqaanaad sheekh ka dhigan ninba magaalo ka yimid baa la yidhi waa markaasuu nin wax yaqaana iska dhigayoo waagi hore aqoonta waxay baadiyaha noor af soomaaliga inuu akhri karo qori karo
ninkiisu wax yaqaana isaga dhigayay baa nin odayaasha ka mid a wiilkiisu xer ahaa baa waraaq u soo diray warqadii buu la soo orday yidhi hebel baa reer magaalo ii akhriy ninkan wax ma akhriya yaqaan wuxuu yidhi wiil yaa soo diray wiilkay oo waxaa kii jira halkaasuu joogaayo waa xerow de nin reeraha ka tagay oo xer ahaa oo soo diray waraaq inuu calacalayo rafaadsan yahay buu iska sawirtay warqadii buu kala bixiyey cabaabu ka firi alla maxaa calacal ku yaalla buu yidhi alla maxaa calacal ku yaalla ninka ma akhriyi karo laakiin dadka wax yaqaanu isaga dhigaya saas darteed kow ninka wax laga akhrisanayo waa isaga horta wax ma yaqaana iyo siiradiis in la yaqaano way marka labaad shaarica caamka ee muslimiinta dadku shuhadaaullaahi fi lardi wey dadkuna guud ahaan dadka siiradoodu kama qarsoonto mujtamacu ninkay culumi iyo nin wax yaqaano oo khayr filiya u yaqaanaanna waa arrin labaad oo kalsooni iyo taskiya siinaysa midda saddexaad ee tilmaamaysa waxaa weeye istishaara inuu dadka uu ku kalsoon yahay ee kale ama cilmigay si fiican u bartaan uu leeyahay uu dad kala duwan la tashado oo dadkan wax akhriyahaya badan yaa yaqaana uu yidhaahdo halkaas kuwa badan oo kitaab akhriyan kitaabka garanayn waxaan uu akhriyaya ma fahansana isaga laftiisa ma fahansanayn waxaan uu akhriyayo sidaa darteed dadka inuu baltashiga badiyo oo yidhaahdo soo xogsado ama meeshuu ka soo tegaya uu ka soo xogsado meel heblaan u socdaayo yaa culummo aho cilmi iyo aqoon laga qaadan karaa ninkaad kaba ka tolanaysa waxay dhahaan soomaalidu kabihiisaa la eega ha isaga kabihiisa hadday dacdaraysan yihiin rafaadsan yahay kaba inta waxaa u tidhaahdaa dee nintiisii wax sameeyey baa tu kale ku dara carabtu waxay faaqidu shay laa yucطiih nin isagiiba aan naftiisii aqoon lahayn ama isaga aan waxba garanaynin tilmaan yaan wax ka bardaa hataa tirahda lafteeda khalada saddex arrimood haddii la tixgeliyo waxaan isleeyahay qofku inta badan uu heli karaa qofka saxda ee dadka wax baray sheekhana nin culamo ah oo lagu tilmaamay bidco asaga ama kitaabkiisa diinta ma laga faa'iidaysan karaa alxamdulilah masalada waa masale hadda aada u jirta ama buuqeedu badan yahay marka waxaan irahdaa horta mid inaan idhaahdo si guud ahaaneed wax lagama faa'iidaysan kara in la yidhaahdo waa hadal aan la dhaqan gelin karin xataa kale ma dhaqan gelin karo intaa kutubahe la qoray fiqiga kuwaad u noqonayso raggii qoray qaybo badanunbaa wax lagu haystaa kuwa xadiidka iyo mustalaxeed u noqonayso kuwa usuululfiqigeed u noqonayso laga yaaba inaad tirahda nin bidca lagu tilmaamay kutubtiisa caqiidada dhinaceeda ayaana wax ka baran laakiin kutubta rag nin bidac ah ama bidca lagu tilmaamay wuxuu qoray iyo cilmikiisoo dhan yaan la ag marin haddii saa la yidhaahdo dee nin kale waa laga yaabaa dad gaara marka inay maskaxdiisa ku jiraan is ula jeedo laakiin erey ahaan ha loo dabaqa haddii la yidhaahdo erey xataa nin kale uu dabaqi karo oo fulin kara maaha lakin waxaan rabaa laba arrimood inaan idhaahdo kow ninka bidcada ku jira culimmadeennu waxay kutubtooda ku qoreen baabkaa uu ku khaldan yahay bidcada ha ka qaadan ninkan masaa'il caqiido oo bidco uu ku jiraa waa nin faqiiha waa nin lugawi ah waa nin muxaditha waad ka qaadan kartaa fiqhigu masaa'ilka caqiidadun baad iska ilaalin xadiidku masaa'ilkii xadiidku caqiidadun baad iska ilaalin masaa'ilka markay soo galaan un baad ka yar digtoonaane inta kale cilmigiisa waa mubaarak مثلا هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى مسائل كصفات كمركا اللي يراهدو مثلا كي أشعرية مريا لكن فقه مركا اعتماده مرجع فقه شافعية ومراجع هذا أساس كاوي أحاديث هذه من مصطلحي كتبتي سا مراجع له وهذه من كتبتي شرحي حديث مسلم شرحي سا مرجع كتبتي حديث كرقائق هذه من 40 كي أذكار كي وهذا إيماني رياض الصالحين ibnu xajar oo kaleetaa ka mida ragga a'imadii rag badan oo cilmigooda laga maarmin laakiin masaa'ilka iska ilaali waa midda koowaad qodobka labaad ee baraarujin laga keliya waxaa weeye ardaygu markuu bilowga yahaysan wax kala sooci karin ninka bidcada lagu sheegay in laga yar ilaaliyo ku fiican yahay ilaa uu soo yarkaca aqoontiiso uu soo gaaray xilli wax kala fahmi karo marka ardayga aada bilowga u ah iyo baabka ninkan lagu yar haysta wixii aan ahayn laga faa'iideysan karaa wixii qaldanna waa iska deebiyo bilaad sheekhana marka maxaa xirta cilmiga kaga aadan mesela cilmiga diiniga aad doonayso maxaa kaga aadan khilaafka culummada iyo masaa-isha fatwada ah ee fatwadaan khilaafka u dhaxeeya mesela alxamdulilah horta
in la fatwoodo iyo dadka in wax loo sheego waa marxalad iyo mas-uuliyad qofku u gaaro waana imtixaan iyo culays qofka fuulo aakhare xisaabtankeeda iyo katabadankeedu inay sahlanayn waxaan rabaa markaas saa darteed inaad ninka ardayga wax baranaya iyo xerowga markan hore isaga mas-uuliyaddaa ma saara laakiin hadda waxaa saaran inuu wax barto xilli bay mas-uuliyaddaasi fuuli doontaa marxaladiisu haddaba isagu inuu fatwoodo iyo kan weeye iyo wax kala xukumiya inuusan aada isugu mashquulin laakiin uu miisaanka iyo xoogga saaro isagu inuu wax barto mas'alo kastoo la keenabana hadduu aqoontiisu gaadhsiisan tahay masaladii suuqa soo gashabana uu kan dhegaysto adilada baaro maxaa saxan maxaa rajaxan isagoo iska ilaalinaya inuu mid u xagliyo walow abiici ay tahay dadku kala xaglin baa iska abiici tahay laakiin sida saxda ah isagunaasun isku mashquulsanin fatwo hebel baa saxan iyo fatwo hebel baa saxan iyo saa maxaa loo yiri iyo saa maxaa loo dhihi waayo hadda inuusan muhiimad weyn saarin tan wuu maqlay inuu sanadkeeda baaro isagoo wax barto cilmiga xasilintiisa uu xoogga saaray tuusan aada isugu mashquulinin oo aada uusan muhiimad isagaga dhigin waa midda koowaad een dhihi lahaa way kaga aadan tahay tan labaad een isdhihi lahaa way kaga aadan tahay inuu kala fiiriyo waxeebaa xad masala cilmi ah iyo waxeebaa xadeebaa xurguf yar ah dadka bini aadamka hadee wax isku qabtaan waa iska abiici nooc xurgufya ay raacdo taa inuusan aada isugu mashquulinin ta saddexaad waxaan dhihi lahaa inuu kala saaro wax khilaaf aqbali kara masaa'ilka ijtihaada culimadu isku kala duwanaan karaan weligeed nagu soo kala duwanaan jiray iyo masaa'il daliil iyo nas cad oo gaar ah leh taas naskeeda inuu raaco laakiin ninkii culimada khilaafana cudurdaar buu leeyahay oo asbaab keentaa jirta ardayda waxaan dhihi lahaa bihadii lmunaasaba inay akhristaan oo ama aada loogu akriyo risaalada sheekh islaam ibn taymiya raxmatullahi caleyh rafcu lmalaam can ilaimati lcalam risaalada inay akhriyaan aad bay u habbootay billahi tawfiiq sheekhana ugu dambeyntii culummada diin ahaan iyo dhaqan ahaanba ixtiraamka culummada muhiimad intee la eg buu leeyahay maxaa kusoo gebagabeyn lahayd barnaamijka oo talooyin iyo tusaaleyna alxamdulilah dee waxaan filayaa diin iyo dhaqan labaduba qofka ummadda waxtarka u leh tixgelin buu mudan yahay ama ha noqdo nin madax iyo sultaan si saxa wuxuu u qabanayaa ama oday iyo waayeel caqli iyo garasho iyo kaaba qabiil qayb madax ka mid ah ama nin hantiya dhaqaale ummadda ku biirinaya oo masaakiintii taageeraya oo meelihii tabaalaysnaa wax ka taraya ama nin aqoon iyo cilmi ku xuduuni ha noqday u xambaarsan ummadda guud ahaan diinan iyo caqli ahaan labadaba wuxuu mudan yahay qofkii ummadda wax ugu fadhiya ummaddana waxtar iyo taya u leh wuxuu ka mudan yahay tixgelin iyo qiimeyn buu ka mudan yahay in eraygiisa la tixgeliyo taladiisana la dhagaystuu mudan yahay saas darteed marar badan bay carabtu waxay tidhahdaa sal mujariban walaa tasal tabiiban dhakhtar hadda jaamacad ka soo baxay intaad weydiin lahayd qof waxaan soo tijaabiyey oo dawo cudur kusoo daweeyey weydii cilmigu waa labo inna waa aqoon barasho ahaan loo barto inna waa tajribo iyo tijaabo ahaan loo bartay iyo ku dhex jirka iyo khibrad ahaan loo kasbado khibradda iyo caqligu markay israacaan cilmiguna wuu sii sharfaa laakiin labadaba waxtar wey walidaalika had iyo goor markii la leeyahay dadka ahlulkhasaaska dadka ahlulxalli walcaqdiga dadka ahlulkhibraha ha la weydiiyo waa khibraddu waqti iyo masaafo dheer bay soo gaabisaa saas darteed ninku markii intuu culimo yahay uu la dheeryahay dadka calaaqadii iyo xiriirkii qofkan iyo rabbigii iyo aakhiradiisi ku wanaagsanaan lahayd inuu u saxayo xilkeedii iyo mas-uuliyaddeedii iyo garashadeediiba u hayana way mudan tahay waxaan aabbahay ka maqli jiray oo ragga axkaamta ee fiqiga akhriyi jiray ahaa 3 lalama dagaalamo askari boolisa lalama dagaalamo si unbu dembi kugu heli dakhtarna lalama dagaalamo si baa laga yaaba dee wax inuu kugu qoro macallinna lalama dagaalamo si unbu waxbarashada kaaga xumeeya waxaa kaloo maalin ugu yiri maalinkay igu dambeysay macallin lalama xisaabtano macallinka ilmaha wax u dhiga ee ilmaha soo baraya xataa wixii aad siisay kharasha lalama xisaabtamo macallin lalama xisaabtamo waayo waxaan uu ku barayaa ka qiimo badan wax kastoo maadoo bixiso
aqoontu waa hanti maguuraan oo cimrigaa kula socon waxaad ugu aad bixisayse wakti go-on baa la isticmaali oo la culi lagu kala tegi hadda fiiga jaamacadaad ka bixisay oo intaad nooshahay wax ku bartay ood ku shaqaysatay xoolihii kaasoo galay iyo kharashkii kaaga baxay intee badan marka wax kasta oo kula bata macalinka inaad siisay aqoonta aad ka qaadatay cimrigaaga kula gelaysaa ka badan buu leeyahay marka waxaan rabaa inaan idhaahdo aqoontuba hadday diintoo tani aakhara kula socdaysa ka war saas darteed qofku waxaa lagu ixtiraamaa inta uu waxgal iyo manfacagal ummadda iyo dadka u yahay saas darteed culummada sharcigiihii culumta shariicada xambaarsani waa dadka waxgal waa adduunyada iyo aakhiradoodiiba waxaan ay barayaan ay u sheegayaan adduunyadiina way sixi aakhiradiina naar ka badbaado janno gal buu ka shaqaynayaa qofka sidaas waxaan filayaa in diin iyo caqliba ixtiraam iyo qadarin badan u mudan yahay waana daahiro jirta hadda arrin dhacdoo muuqata weeye arrintaasi halkii loo baahnaa inayna gaarsiisnayn oy tarbiyada dib dad badan in loogu celiyo ay u baahan yihiin ama qadiyadda kale tiri maxaa gabagabada dardaaranka dhehi lahayd waxaan dardaarmi lahaa dadku inay wax bartaan rag iyo dumarba wax bartaan ilmaha iyo ubadkana waxbarashada lagula dadaalo laakiin waxbarashadii way badan tahay in waxbarashada la kala xuro da-yartana waxaan dhihi lahaa inta adigu dariiqada taagan tahay dadkii wax soo bartay dariiqaan baad sii taagnaa soomaalida waxay yidhahdeen waxbarashadu subax iyo sadar yaa badan subax baa badan bay yidhahdeen maalin walba hal sadar oo qur-aan haddaad barato qur-aankao dhamayseen baad arkay saas darteed waayeelkuna waxa bartaan soomaalida gaar ahaan waan waayeelay oo carabkiiba ay adkaaday leh waxaan rabaa inaa idhaahdo arrintaa waa waxaad iska dhaadhiciseen laakiin wax jira maaha saxaabada nabiga calayhi salaam ee cilmiga laga dhaxlay iyagoo carruurtoodu reere leeyihiin bay islaameen cilmigana barteen kowdii dadkeennii galbeedka u qaxay waayeelkiisoo ka afka waddamada ku adeeganayaan maaha qur-aankaa ka adag ilahi yuri walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal mudakir ugu dambayn ninaan garanayo dhintay allah naxariiso siimaan buu ahaa weligii alif baa looma dhigin waxaan ku arkay ninka sweden baan ku arkay magaalada stockholm buu joogi jiray masaajidka lagama waayi jiray allah naxariiso uu dhintay intaan ka warqabo ninkaasi isagoo 80 jir alif baa bilaabay ilaa yaasiin buu marayay baa ligay xifdiga qur-aanka markuu dhintay marka adoo weyn baad wax baran kartaa waxbarashadu da' lagu dhaafa ma laha waxbarashadu iyada lafteedaaba cibaado ah sida salaada ilaa culimmadeennu ay yidhaahdeen cibaadaadka fadligooda cilmiba u fadliga cilmiga waajibkiisana waajibaadka waa ka fadli badan yahay sunnadiisuna sunanka waa ka fadli badanta inaad 2 ragcadood tukato iyo mas'ale inaad barato mas'ale inaad barataa ka fadli badan way 2 ragcadood ay ku weegyihiin laakiin mas'ale aad baratay adna baratay dadna waad sii bari cilmigu waxaan rabaa inaa idhaahdo sida Isxaaq al-Albiri sheegay hal mid buu xoolaha kaga duwan yahay iyo kursiga iyo jagada jagadii aad haysatay iyo kursigii haddaad nin siisa waad faramaranta xoolahaad haysatay qayb haddaad bixisana xisaabtu waa isdhin cilmigu laakiin markaad bixiso wuu sii badan yaziidu bikatrati al-infaaqi minhu wayanqusu in bihi kafan shadadta haddii aadan bixin cilmigu baabaa wadan wax barin dadka laakiin cilmiga markaad sheegtay wax bixinta kusii burqado kusii batay isagaa jira xoolahaynu cayrinayna haddaad bixiso way yaraan kursiga iyo xukunkuna haddaad bixiso wuu yaraan iyaga ha lagu bakaylo laakiin intay wax baratayna cilmiga ha bixiyaan oo dadka wax baraan ma dhihi ilaahay tawfiiq جزاك الله خيرا شيخ وبارك الله فيك الله كأبرسيو دادالك بدن u bixinaysa dadka Soomaaliyeed daawadayaal waxaad ku mahadsantihiin daawashada iyo ka faa'iideysiga aad ka faa'iideysateen sheekhana Sheekh Maxamuud Shibli oo maanta barnaamijka wacyi inoogu marti ahaa inta barnaamijkan oo kala inuu hawada idin soo marin doono barnaamijka wacyi waa aniga oo Maxamuud Duleedayna oo idinkaga tagay sida iyo nabadgelyo khayr badan iyo abaal badan Allah ka siiyo sheekha iyo kameramaanada barnaamijkan idin soo gudbiyay idin sahlay inaad sidaan fudud ku daawataan sidaas iyo waxaan idinkaga tagayaa fi amaanillah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.